waxaa halkan idinkala hadlaya garyaqaan cabdiraxmaan cali ubaxle. waxaan jeclaystay inaan faahfaahin dheeraada ka bixiyo arrin ku saabsanayd Sunpower iyo wixii igala kulmay shirkadda bixisa korontada. waxaan ahaa macmiil ka tirsan dadka ay supplier garayso ama ay korontada siiso shirkadda Sunpower. wax dhiba oo aan qaali ahayn kumaan qabin xaqiiqatan, oo waayo annaga dee nama dhex marin wax dhibaato ah oo muran dhaliya. dab baan ka isticmaali jiray, waanan maxaa la yidhaahdaa iska bixin jiray wixii ay biil ii soo diraan. warqadda ay guriga dhigaan ee yidhahdaan lacagtaasaa lagu leeyahay, waan iska bixin jiray. wax dhibana iskumaanu qabin. wax dhibahoo ii gaara oo aan ilaa saacadda ka sheeganayaana ma jirto, balse qoraal aan shalay qoray ayaad mooddaa in siyaabo fara badan looga soo cawday ama loo arkay inaan maxaa la yidhaahdaa shirkad ganacsi iska cambaaraynayo. shirkadaha ganacsiga ee bulshada dhexdeeda ka ganacsada aniga iima kala duwana. dantayduna waxay ku jirtaa uun ta aan service fiicanna ka helayo, qiimo wanaagsan oo macquulana waxay ku siinaysaa. competition cidna kulama jirin oo maxaa la yidhaahdaa midna ma cambaaraynaynin, midna maan dallacsiinaynin. laakiin dhib gaarina xaqiiqatan igama soo marin aniga. waxaanse ka damqaday maalin maalmaha ka mid ah gurigayga oo ku yaalla badda cas eriyada la yidhaha beerta ilma xaaji nuur, anigoo ka soo baxay. maalintay ahayd kuma dambaabi karo, ma xasuusto taariikhda intay ahaydna ma xasuusto, laakiin qiyaastii sannad iyo dheeraad baa ka soo wareegay ama 2 sano dhow xilligaa. gurigan ka soo baxay saacadda uun baan sii xasuustaa inay 8diina dhaaftay, 9 subaxnimona aanay gaadhin. intaa waan sii xasuustaa, laakiin maalintay ahayd iyo taariikhda intay ahayd midna ma xasuusto, ku dambaabi maayo. shirkadda Sunpowerna dhib annaga beersanalina dhex martay ma jirin. qiimaha dalka iyo sida korontada ay kala tahayna xaqiiqatan qof ka warhayay ama maxaa la yidhaahdaa baadidoon u doonay ma ahayna. markii aan guriga degay shirkaddii leyrka maxaa la yidhaahdaa hore ugu jirtay uun baan aniguna dabkii kasii isticmaalay. taasina waxay ahayd Sunpower. waxa dhacday guriga anoo ka soo baxay sida aan idiin sheegay, saacadduna ay 8diina dhaaftay, 9kiina aanay gaadhin. oo ayaa guri aan jecelahay inuu noo dhexeeyey ilaa 4 guri qiyaastii. markaan gaariga guriga kala soo baxay ee geerka dabadiisa taagnaa, waxaa halkaa iiga muuqatay qiyaastii meel aan isleeyahay guri 4 guri noo dhaxayso qiyaas ahaan. cidda ku jirta aanan aqoon aanan u lahayn, wax gaari naga dhexaynin, ayaa waxaan arkay nin jaranjaro tuurta ku sita oo inuu dhaqaaqo marba u hollanaya, iyo gabadh ku dhegsan jaranjarada xagga dambe oo war istaagtaa haysa. war leyrka noogu celi, war lacagta waan iska bixinaynaa, war bilaah baan ku dhaashay leyrka noogu celi, war qof baa naga buka, war marwaxad baa ku socota. aad bay u cabatay gabadhaas. mar way ahayd dhibta haysata un bayna ka cabanaysa, aqoonu maan lahayn. gaarigii baan soo agistaajiyo, guriga ka soo hor dhaqaaqay. ninkii baan la hadlay gaarigii intaan ka soo degay. waxaan ku yidhi war balistaag, war inaadaro gacaliyo maad maxaa la yidhaahdaa balistaag ugu istaago, maxaa dhacay baan ku idhi. markaan arkay dee gabadhu ilaa xadka ay barooranayso, war ilmaa war qof baa naga xanuunsanay, war bukaan baa guriga noo jiifa. dabeetna maxaa dhacay baan ku waxay ku tiri korontadii buu gooyey annagoon ogeyno. dabeetna marwaxaddii un baa nagu baktiday annagoo qof buu ka dul farfadhina. kadibna ilmo yar baa nin baa nagu yidhi, ilmo yaroo daarada joogay baa layidhi leyrkii baa la gooyey. ninkii markaan ku yidhi war maxaa dhacayna wuxuu lacagtii baa bixin weydeen. lacagna maanaan ogeyn bay tiri, annagu biilkana weligii waan iska bixin jirnay. intaasoo sannadood baanu maxaa la yidhaahdaa reer shirkadda kastamaro ahayn. dee ilowsiyo bini aadan baa dhici karo, haddaanu xataa ilownay kumaanaan talagelin goyntan leyrka. dabeetna waxaan ku yidhi war hadday sidaa tahay ina waxaad samaysaa dee reerkana leyrka ugu celi, lacagtina ha iska bixiyaan. si ruulahoo runtii ma garanaysaa aan dee garawsiiyo lahayn, maxaa la yidhaahdaa damqasho lahayn, ayuu wuxuu yidhi anu leyrka waan gooyo, amar baa la isiiyey, ordoo xafiiska ka soo bixi lacagta. waxay tiri bukaan baa guriga ii jiifa,
xafiis ma tagi karo walaalow iga qabo lacagta oo lacagta iga qabto oo maxaa la yidhahdaa aan xafiiska nimaadno lacagta bixinno annaga xafiiska cid soo diraya bay tiriye horta leerka noogu celi nag uu diiday ninkaas waxaan ku wariyaa inaad xafiiska halku ku yaala anigaygaas xafiis leer aan maxaa la yidhahdaa saad ku bixiyo mooyaane oo aan halkaa marka la yidhahdaa biilkii waka aan saad uga dira mooyaane xafiis leeyin meel ku yaala ma arag dabadeeto waxaan ku yidhi xafiisku halku ku yaala wuxuu igu yidhi waddada maansoor qabata ee ka leexata maxaa la yidhaahdaa hodheelka meesha la yidhaahdo dabbay maray bay ka leexataa xagga waddada kor u qarxaxday maansoor sawaaxili baa la dhaafayaa shaybe eriyadiisa ayuu hodheelka shaybe iyo dasan inta u dhaxaysa meel ah ayuu xagga galbeed kaa qabanayaa buu igu yidhi waxaan ku yidhi laba mid yeel inaadaro leyrka xidh dabeetana aan ku qaado gabadhan anaa lacagta ka bixinaya reerkan bukaanka iyo dhibaataysan dee halkaa kagama tegi karnay anaa lacagta soo bixinaya iraaco leyrkana iminka intaad ku celiso xafiiska aynu wada tagno lacagta aan bixiyo haddaan bixin waayo soo noqo oo ka goo may buu yidhi lacagta la bixiyo anigu already waan gooyey lacagta marka la bixiyo uun ayaan leyrkaas soo celinayna waayahe baan ku yidhi lawaad aragtaa oo way cabanaysaa oo bukaan baa u jiifo oo way dhibban tahay oo meel ma tegi kartay anaa xafiiskii tagay lacagta ka soo bixinaya taagno halka aad reerka markaa leerka ugu celisida waayahe buu yidhi nambar baan ka qorto ma aaminin waxaan si bilis ka tagaa nambar baan ka qorta dabadeetana waan tegey waxaan ku yidhi biilkii meeye wuxuu biilka aniga waxa laygu yidhi $24 iyo 58 senti baa lagu leeyay waxaan ku yidhi biilkii ma sidaamay inantii baan biilkii weydiiyey ma garanayo wuxuu igu yidhi nambarka guriga qoro nambar baa jira gidaarka ay ku qoraan sunpowerna oo ay markaa ku gartaan xaqiiqatan way fiican yihiin oo database bay halkaa u sameeyeen nambarkii baan qoray waan tegey meeshuu ii tilmaamay baan tegey nin baan ugu tegey maxaa la yidhahdaa ninkaas ay tiki inuu magaciisa maxamed igu yidhi waxaan ku yidhi nin oo dhibtaasaa jirta reer caynkaasaa ka goyseen maxaa la yidhahdaa ninkii aad baan isiri ma garanaysaa dee tale waxaad siin karaysana sii laakiin nin u dhegan nugol ama nin diyaar ma ahayn lacagun baa isaga caddayn dee maxaa looga gooyey lacagtii bixin waayeen waddo kaloo baan ku yidhi aa u martaan oo digniina leh oo maxaa la yidhahdaa qoraalla leh oo ku celcelin leh oo xataa leyrka markaa jaraysa intaa guriga ku garaacdaan tiraa walaalayo ama lacagtii keena ama haddaanu jaraynaa ma jirtaa maybe yidhi qofun baa loo diraa lee ka soo go markaasunbuu qofku is garanaya markaasuu qofku is ogaanayaa buu yidhi intuu marka hore noo dhagooleeyo ayuu marka leyrka la gooyo ogaanaya dee wax jira ahaydaana garan maayo laakiin aniga waxa aad iyo aad ii damaqday gabadha cabatay ee bukaanka guriga ku haysata ee in yar oo damqasho ah xataa weyday iyo kii aan u tegay oo aan in yaroo garowshaa ka bixinin lacagtii baan halkii ku siiyey waxaan ku yidhi amar sii ninkii leyrka gooyey nambarkaan ka soo qoray waa kaasi iminka ugu celidhe ninkii wuu garaacay wuxuu ku yidhi gurigaa leeclexisi waa la bixiyey leyrkii ku celi si aan arrinkaa u hubiyo waan tegey halkii leyrka laga gooyey ayaan dantaydii oo dhan maalintaa waxaan runtii u seegay in aan gargaar u fudiyo reerkaa dhibban iyo shirkaddaa dhan ee ummaddeeda ka ganacsanaysay sidaa ula dhaqmaysa gurigii baan dib ugu noqday waxaan ku idhi leyrkii ma laydin xidhi albaankan ku garaacay may baa layidhi leyrkii rasiidkii markaa waan ka soo qaaday aan lacagta ku bixiyey baan reerkiisii waxaan ku rasiidkiina lacagtiina waan idinka bixiyey waxaad samaysaan leyrkii ma laydin xidhi maya baa layidhi ninkii baan garaacay wuxuu yidhi waan fogahay waar fogaanta layna kaalayo baan ku yidhi waad ogeydo waxa meesha ina eryayey bukaan baynu u naxariisanayna horta xaqiiqatan waan hubiyey bukaankii gurigiina waan galay nin la babinayo oo dhibaataysan oo maxaa la yidhaahdaa markaa dee inta karaatuun yar lasoo jeexjeexay lagu babinayo oo xilli aad u kulula way ahayd ayaan guriga u galay dabadeeto ninkii wuuna leexleexiyey waxaan qiyaasi karayaa in ay 12 duhurnimo oo dhow nagu gaadhay ninkaygii 9 subaxnimo ka hawlgalay halkaa sii socod soo socod reerkaa ku soo celinta leyrkii ninkii mashruuc buu naga dhigay waar waan soo socda aakhirkii markuu yimi warayna aad halkaad joogta anaa ku soo doonaye aakhirkii markuu yimi maxaa la yidhaha isna wuxuuba ka dhigtay in uu xidhistii leyrkii ku celinteedii aan lacag ku siino mushqaayad ku siino dee niyow hawlo kaleaan ku jiray oo guryo kaleaan xidhayo dee anugu aan shaqaysanayo waa reena adeer markaa niyow almuhim
وحتى هاي كسي دريد نيكي أحمق نمد عي كاسة نقول يتوك ترى يريد كراي اللي يركي رير كي وحري أي العجا كو قيلة سيا وردي شقية هي أفكار يوصل وضع عقولي ما أصحاب بيني قد حيان وحسكو سيرنو وحد يقول بعد نقول سميسود ومضى إلهي أنا نقرن نقول سميسه warka walaalayaalow reer Soomaaliland anu shirkada ma ceebaynin dib uma geysanin xumaan nagama dhaxaynin laakiin attitude-ka ama yani sida ay ummadda ula dhaqmayso waan diiday dadkaaga waa laga shaqaystaa laakiin naxariis iyo service wanaagsan baa la tusaa haddaad istiraag keligaa unbay kugu khasban yihiin oo saad doontaad ka yeelaysaa waa axmaqnimo dadka iyo shacabka iyo dadka ka shaqaysanayana xeer kala xadida oo xuquuq kala sameeya bal dawladuna ha ku dadaasho insha Allah ha sameeyso ganacsatadana waxaan leeyahay dadku waa dadkeenii waa ka ganacsanaysaan waa mid xun iyo mid wanaagsan waa kala kulmaysaan bal u naxariista oo xaaladaha noocaas markay jiraan naxariis hal idinka dareemo dadkan idin shaqeeya ay ku qafisheen uun kad jara cidna ha u naxariisanina training siya ay dadka customer-ka ah dabeecad wanaagsan iyo soo jiidasa kula dhaqmaan wixii ummadda ilaahay idinka calfo waa ka helaysaan laakiin axmaqnimada uun ka daaya ganacsatada reer Soomaaliland miduu u yahay waxaan kula talinayaa oo ka codsanayaa si xun baa dadkii nooga dhex ganacsataan si xun oo axmaqnimo ah dadkii nooga dhex ganacsataan aakhiradiinana uma tudhaan war walaalayaalow wax xalaalana ummaddiina ka raadiya una tura dadka noocaasi waxay u baahan yihiin iyaga la gargaaro anigu reerka lacag la'aan kuma garanayo aqoon gaar uma lahayn حتى يعني درس كوبل إسبرتاي دادان إسبرنا حتى أقول لها ما أهين لكن إلا هير كلو تعدي قبل دبريو تميسا هو يدي أو كلاعة نن اللي يرى أبوها أنا سلا قياستي تدا اللي يرى ذي مكأو محل يوحي يغير وإسكاد اللي يرى أنا سلا صدن مقارن أيوها قبل وينو أنا سلا قياستي شني عفرتن مالها أي أحد ده احترام بيكم مدنيد ويلني بيكم مدنيد إنه أدبعوا حتى واحد كعوان يسلى قبل لما كم مدنيد إنه عدي صادرت الله هذا لو يودي تاسات محن كي يلا بيكم مدنيد أنت من مو يلينا سيدو تعلابو يلي أحمق نمط أهيد بلا نحريست أهيد بلا دمقشة أهيد أيو يلو دوتنا هالكاس كبح مركز دمروح يقاد السيا أنا قد مش قايد السيا الله كيدن كحرو مركز الشركة هو أنا بتحسن أنت هك أركي kuwa kalena kuma dambaabi karo inda birtaan u wareegay anigu maalintii wax sideedan oo kale kugu dhici karto adoo guriga hurdo oo talaagadii ku baxayaan mara waxadii ku baxayaan haduu doonto caruur guriga idin joogto ayaaba daleerka sida tuugada inta kar laga siyaa hadhow cidii xidhaba way doontaane warbal ummad kuwan ka yaraad dabeecad wanaagsan doonta xaqiiq barayska magaalada aan la socon waxaan maalinta ku ogaaday inaan qaale ku jiray qiimo ka jaban aan ku helay inda birtaan u tagay معميل آد وناكسن بإلا سمايين ولقي يقولون ليرك ما قوينين إلا يمكن هرقيسي ميشان وقورو إيقان ليرك محل ليرا كسو حدا سببتو وحيليه سيرس وناكسن وحيليه محل ليرا هذا حتى قيمها ولا قول ساير يا بشي ولا قول يا واربو كوكو يا ربتين تاسك بح ودد آد وناكسن بدل لير لقويني ولا قلت الدقينا أنو كل بيرسونالي كما أرق كوا هورانا كما أرق وكدن باقي معيو لكن waxaan isireen de waxa inantaa ku dhacday ayaa ku dhici doonto saasaan uga guuray iyagana imka waxaan leeyahay war dadku dad meel idin ku xareysan maahay walaalayaal u tura umadiina u tura oo waxa aan arkay dabeecada noocaasi shaqo ma aha ganacsina ma aha wax bulshada wax lagaga heli karana ma aha ummadda idin shaqeynaysan training siiya schedule iyo nidaam ay ku shaqeeyaan bara soo gooyo soo baxso waxa ka qurux badan digniinsi waxa ka qurux badan reerka guriga ku garaac waxa tiraan lacagtii bixin weydeen hadaa bixin weydaan imkaanu jarayna saddex isha ka bacdi hadaanu idin nimaadno lacagtii bixin weydaan waanu jarayna maalinta jaraysaan laftiisa inta albaabka garaacdan waxaad ku tiraadaan maanta idin ku dambaysa inta soo fariimood baan idin soo dirnay waa ignore garaysan waa la gaaray xilligan leerkeeda ka jari lahayn laakiin jaradan tuugada ah la cararaysaan inta kar ka siisaan baxsanaysaan war ummadda ka daaya shirkadaha kale idin la qabaan ma garanaya taasaan goob joog soo aha taana waan ka xanaaqay de ummadana waa u sheegay waxaan ka arkay la iskuma kiin hadlayn karo de xaqiiq qaali
iyo axmaqnimada noocaas mid la isku kin hadlayn karo oo bulshadu dee ay customer idin noqon karto ma aha sida dhismaha caalamka wax la dhiga caynkoodii shirkad ku caanbaxday shaqaalo loo carbiyey howl waqti cayiman ku idleeya Awad Construction Company cajiib maaha waa cajaayib haddaad hayso cuud ka saar kirada ciilkeeda calacalka joogtada qoyska ugu aqalada cajiib eeshcalaa dhismo bangalo blood nusblood masjid baqaar iskuul sariibad u dhis bulshada u iibi carruurtaada ku casuum marwada maxaa faarad cudoon adeeg ku cuntama Awad Construction Company ku diyaar waxa cayrad aluminium agab furniture ku ciiltira sida albaab daaqad qalabkii guryaha xafiis aan walba leh u doona Awad Construction Company alla yaa cizay makiinada jaajuur u qoday cadad walba oo aad dalbato Awad Construction Company uu kaale laazim waa culays gaadiid ku cilbax laga caawiyo iska rogo ka dalba Awad Construction Company aan ku caawiyo tilmaanta waxa uu ku yaala Awad Construction Company agagaarka inay afdilne maxdarka Sky Motors ayuu u dhow yahay wixii faahfaahintaasi dheer kala xidhiid taleefanada shaashada hortaada ka muuqda dhismaha cudoon caasimad waxa ku farayarayst Awad Construction Company